الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaynu kasoo hadalnay xadiiskeeni 11 waxaynu ku guda jirnay 40 an-nabawi 40 axaadiis ee laga wariyay nabigeena ka sugnaaday nabadgelyo naxariis dushiisa Allah yeelay. haddana waxaynu u gudbinay xadiiskeeni 32. bismillah. عن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري أما حديث كرت عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدار القطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموضع عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا. إن شاء الله وحنا كسر الحديث كيني لبا أيام كهد لينا إن حديث كان وحقو كهد ليا إن آني بنانين أديدو أما هديدو يعني دبكو. waxaa laga wariyay Abu Sa'id Sa'd ibn Malik al-Khudri Allah karaan noqday inuu yiri rasuulkii Ilaahay nabadgelyo naxariis dushiisa Allah yeelay dib ma jiro adiyadna ma jirto. dib ma jiro yani isdhibid adiyad waa isdhibid dib ma jiro isdhibidna ma jirto. waa xadiis xasan ah waxaa wariyay Ibn Majah ad-Dar al-Qudni iyo kuwa kale. marka xadiiskani waa erayo kooban ayuu ka hadlayaa laakiin macna xeel dheer ku fadhiya. wuxuu xaaraantinimeynaya dhammaan noocyada dulmiga, xanta, xasadka, gardarada, dhaca iyo xadgudub kasta. wuxuuna leeyahay ma banaana qof xadgudub kula kaca yani qofka kale xoolihiisa, naftiisa iyo sharaftiisa intaba. qofka muslimka ah waa kii nabadgelyo ayuu leeyahay ama kii nabadgelyo laga helo carabkiisa iyo gacantiisaba xataa haddii la dulmiyo. waa inaanu yani ku xadgudbin difaaca iyo iska celinta dulmiga. marka xadiiskan waxaynu ka faa'iidi karnaa noocyada dulmiga oo dhan in ay xaaraan yihiin. waxaan kaloo ka faa'iidi karnaa in laga nabadgalo carabkaaga iyo gacantaaga. qofka muslimnimadiisa dhabta iyo iimaankiisa wuxuu noqon karaa markii laga nabadgalo afkiisa, carabkiisa iyo gacantiisa in aanu dadka dhib ugu geysan. intaas ayaynu kusoo koobinay xadiiskeeni 32. intaynu kaga gudbin xadiiskeeni 33 وولاشين الله درتيس إذن جعل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستودع الله الذي لا تضيع